naf walbaaba kama maaranta inay barato la hadalka nafteeda qaabka ay ula dhaqmayso nafteeda iyo qaabka loola dhaqmo bulshada naftayda gacalo waa buug aad u kooban oo ka kooban 102 xaashiyadood kaasoo qofku hadduu hal mar fadhiisto uu ku dhammayn karo buuggan intaan u gudagelin soo koobistiisa ama summary-giisa markii koowaad waxaan u mahad celinaynaa qofkii buuggan qoray Colo Dayub iyo sidoo kale qofkii luqadeena hooye macaan inoogu soo turjumay Maxamed Qaamuus markii aan akhrinay buuggan runtii aad ayuu cajabiyay qof walbana waan kula talinay inuu akhriyo haddii aad tahay gabadhna adi si gaar ahaan ayaan kuugu boorinaya inaad akhrisid buuggan soo koobista buuggan waxaan u kala qaybiyay 3 qaybood qaybta koobaad oo ah qaabka nafteena loola hadlo sharciyada lagula dhaqmo nafteena iyo qaybta saddexaad oo ah qaabka bulshada loola dhaqmo qaybta koobaad la hadalka nafteena waxa la yiraahdaa wada hadalka ugu badan ee maalinlaha ay qof uu qaato wuxuu la qaataa naftiisa 80% si guudna buuggani waxa uu inta badan uu ka hadlayaa qaabka ay nafteena aynu ula hadalno qodobka koobaad aynu ka baran karno buuggan qaabka ay nafteena ula hadalno waxa weeyaan ha sameeynin wax kasta oo aad hadhow ka qoomamayn doontid naftayda ilaahay xorriyad ayuu nolosha kugu siiyay balse laakiin xorriyad walba waxa la socda doorasho kaba soo qaad qof ayaa kugu iri eray xun oodan u qalmin in aad xanaaqdo ama in aad dareenkaaga qawajisid oo kantaroosha waa doorasho adiga ku taala inaad cadhootid iyo inaad dareenkaaga kantarooshid marka talaabo walba oo qaadayso doorashadaada mar walba isweydii in hadafka nolosha aad ka leedahay waxa aad qabanaysaa uu ku horsoodayo waxa aad rabtay iyo in uu ka soo horjeedo waxa aad rabtay in aad shiid noqoto ama inaad hanti yeelataana sidoo kale waa doorasho inoo taala barashada labaad mararka qaar waaba adiga uun cidda qura ee noloshaada caqabada ku ah runtii cashirkan waa cashir aad u muhiima una fiirso waxa uu ku leeyahay isku day inaad hore u samaysid qaladka waayo si walba qalad uu dhacaya marar fara badan waxa jira hadafyo aad leedahay ama rajooyin iyo riyo aad leedahay balse laakiin iskuma deydid oo uma dhaqaaqdid markii aan bilaabayay dhaqaalaha ay wax ka barnay dhaqaalaha waxa jirtay marar fara badan oo isku dayay in aan talaabo qaado waxa aan barto aan ficilkeeda la imaado balse laakiin mar walba kuma guuleysan jirin talaabadan aan qaadi jirin adiga laftarkaaga waxa jira hadafyo aad leedahay mar walbana aad naftaada tiraadid waan sameyn doonaa maanta balse laakiin aad ficilkeeda la iman wuxuu ku leeyahay cashirkan caqabada ugu weynba cid kale maahan waa nafteedu mar walba nafteenu baa sameeysa wadooyin aynan ku sameynin shaygaas waxa jirtay weer oranaysa oo Facebook caan uga ahayd oo la yiraahdo hore u samee qalad horena uga gudub marka cashirkan wuxuu leeyahay nolosha hadii aad wax rajaynaysid ama hadaf aad leedahay hore wax u samee hore wax isugu day intii aniga laftarkaygu marar far badan waxaan ka maqli jiray dadka dhaqaalaha meel sare ka taagan qoomamaynta far badan ay sameyn jireen waxa ahayd maxay hore ugu bilaabi waayeen iyagoo digniin siinayaan waxay ahayd hore u bilow inaad maal gashatid anigoo mar far badan aan maqli jiray ereygaasi haddana maan bilaabin inaan hore u maal gasho balse laakiin markaan dib iskugu qiimeeyo haddii aan qaadan lahaa talaabadaas waxaan hubaa meesha aan joogo inaan talaabo yar ka horreyn lahaa haddaad doonaysid inaad wax samaysid hore wax isugu day qalad hore u samee ugu dambaystiina tixgeli casharada aad nolosha ka baratid nasiib wanaagsan naftayda cashirka saddexaad ee la hadalka nafteena aynu ka baran karnaa waxa weeyaan dib ma leh inaad kaliya noqotid xilliyada qaar waayo kelinimadu marar badan waxay ku siisaa awood iyo geesinimo buugu qaybtan wuxuu ku bilaabay sharaxaad yar aad u cajiiba marar fara badan aynu maqalnay balse laakiin si qaldan aynu u fahanay waxaanu baa inaad dhiirigeliyaal fara badan aad ka maqashay waa in ay naftaadu is heshaa haddaba buugan muxuu ku sharaxay ishelidda nafta ishelidda wuxuu ku sharaxay isheliddu ma ahan xaqiiqdii inaad israadisid oo dhuumo ama dhuumaaleys lama ciyaarayo ama ma tihid shay lumay oo la raadinayo ishelidda dhabta ahi waa dib u noqoshada nafteena dib u eegista qaabka aynu nafteena iyo nolosheena ay u soo kortay iyo bulshadii aynu la soo dhaqanay waxyaalihii ka qaldanaa maxaa fiicnaa maxaa se qaldanaa waxa jira waxyaalo fara badan oo laynaga dhaadhiciyo balse laakiin xaqiiq aan ku dhisnayn ani ahaantii markaan eego dhaqaalaha waxa jiri fikirka qaldanaa ee bulshada marar fara badan aan ka maqlay intaan dhalinyarta ahaabaa ka mid ah shaygan la yiraahdo lacagta haddaad iminka ku raaxaysan weydo ma aakhiraad ku raaxaysan adiga laftarkaaga waxa jira dabeecado aad leedahay iyo fikirro aad leedahay balse laakiin aadan ka warqabin meesha ay ka imaadeen oo naftaada dib ugu noqo maxaan saxsan oo sameynaya iyo maxaa qaldan oo sameynaya nasiib wanaagsan naftayda qaybta labaad sharciyada aad kula dhaqmayso naftaada iska siidaa wax ka qurux badan ayaa booskiisa ku buuxin doonee naftayda gacalo fiiro gaar ah marka aad mushkilad u weydo xal sideeda ku aqbal tusaale ahaan waxa jira qof waalid kuugu toosan balse laakiin aad isfahmi weydaan marar fara badan
waxa hubaala in aadan bedeli karin dabeecadda qofkaasi waxaana kugu habboon in aad ku aqbashid qofkaasi siduu yahay wadadii aad ku aqbali lahaydna in aad raadisid si labadiinuba aad deganaansho u heshaan jahwareer kasta garabkaaga ayaan taaganahay naftayda cashirka xiga way fiican tahay inaad xawaaro sare ku socoto laakiin sidoo kale waxa iyana muhiima inaad garanayso xilliga aad cagta dhulka dhigayso ee aad yara nasanayso runtii markii aan akhrinay buugan aan cashirkan soo gaadhay waxaan naftayda ku yidhi aad ayaan u jeclaan lahaa in aan hore u barto cashirkan mar walba oonu u dadaalno hadafkeena oo aan shaqooyin fara badan kaasoo inoo horseedi kara hadafyadeena aynu u samayno waxaa mar walba muhiima in aynu dib u istaagno oynu u fiirsano tallaabooyinka aynu qaadana ma caafimaad ahaan ayuu u wanaagsan yahay waxa aan samaynayaa mise caafimaad ahaan ayuu aad uga hooseeya marka caafimaad ahaana aad ha uga sii sarreysiin aadna ha uga sii hooseysiin balse laakiin meesha dhexdhexaadka ah aad isleedahay halkan aan kuugu habboon samee mashiinka aynu ku soconno waa jirhkeena waxaynu u baahannahayna waa jirhkeena in aynu fahanno goorta uu u baahan yahay nasasho iyo goorta uuna u baahanayn nasasho ku takhasus caafimaadka waxay dhahdaan murquhu ma koraan marka uu qofku training samaynayo balse laakiin murquhu waxay waaweynaadaan ama ay koraan marka uu qofku nasiyo wax xuni kuma haleelaan naftayda cashirka saddexaad xakamaynta naftaadu waxay ka bilaabmataa xakamaynta afkaartaada haddii aanad xakamayn karin waxa aad ka fikirayso ma xakamayn kartid waxa aad samaynayso dejinta hadafyadaadu waxay u wanaagsan tahay horumarinta naftaada halka caadooyinka maalinlaha iyo ay yihiin wadada aynu ku soconno si yar gaaban aynu soo koobno qeexitaankan hadafku waa jihada aynu soconno caadaduna waa wadada aynu ku soconno maamuus kasta waad u qalantaa naftayda qaybta saddexaad la dhaqanka bulshada cashirka koobaad haddii aad rabto waqti xorriyad iyo tamar dheeraad ah bilow adeegsiga ereyga maya cashirkan waxaan marar fara badan ka maqlay adigana aan hubaa inaad maqashay dadka hantida leh waxaa jira nolosha dad fara badan oo u baahan waqtigaaga kuwaasoo marar fara badan ku odhanaya kaale arooskana tagne kaale nala soo sharaab kaale halkana wax ka jiraane wajiyo kala duwanna way kuugu iman doonaan mar Faadumaa kuu iman mar Faarax baa kuu iman mar Cabdi baa kuu iman cashirkan wuxuu inagu boorinayaa in aynu cashirkii hore aynu nafteena aynu ka baranay ee ahayd mar walba xorriyada naftaada u tahay balse doorasho ayaad leedahay qof marka uu wax inoo soo bandhigo in aynu dib isku weydiino haddii aan doorto shaygan ma wuxuu ii horseedayaa in aan hadafkayga gaadho mise shaygan haddaan doorto wuxuu ii horseedayaa in aan hadafkayga aan ka soo horjeedsado dunidu waa goob waalan qof walbaana abaal kuguma lahan ee naftaada ha cadibin daryeel badan ayaad mudan tahay naftayda cashirka labaad la dhaqanka bulshada nolol qurux badan haddii aad doonayso naftayda caadooyin wanaagsan samayso si aynaan cashirkii hore aynu baranay aynu si qaldan u fahmin cashirkan wuxuu inagu boorinayaa sidoo kale in aynu dhanka kalena wax ka aragno oo aadan odhan wax walba oo la soo bandhigo cid walba oo waqtigeyga rabta waxaan odhan doonaa may waxa jira dad fara badan oo inala raba wax wanaagsan waxa iman doona marar fara badan inagoo u socona hadafkeenii inay noloshu ay adkaato waqtiga ay noloshuna adkaato waxaynu u baahannahay dadka inala jecel in aynu guulaysano in aynu waqti siino qofka ugu horeeya ee kugu jecel sida aad tahay wanaagsano ama xumo waa waalidkeena qof walbaana uu u baahan yahay inuu haysto nolosha qof ku jecel sida uu yahay deganaansho iyo xasiloonina siiya waxa jirta qiso aad ii soo jiidatay aan huba inaad maqashina qisadan waxay dhaxmartay nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam iyo Aisha markii uu la kulmay Jibriil waxa naftiisa gashay cabsi far badan isagoo xaafadiisa u soo ordiyana wuxuu gurigiisa soo galay isagoo cabsi far badan hayso aqalkiisii Aisha ayaana la kulantay ka bacdin wuxuu ku yiri idad markii koobaad aynu uga feel celino si qof walbaaba uga feel celin lahaa qof dardarsan oo cabsi ahayso marka uu gurigeena soo galo waxa aynu marka koobaad weydiina maxaa kugu dhacay maxaa ka cabsiinaya maxaa kugu dhacay yaa ku soo dilay yaad isla kulanteen bal u fiirso qaabka ay uga feel celisay Aisha isla markii uu guriga soo galay waxay u buuxisay baahidiisa koobaad kamay horkeenin maxaa kugu dhacay yaa ku soo dardaray maxaa ka cabsiyay way diiday oo kaliya kabacdina ereyga ku tiri u fiirso erey qaali ayuu ahaa iyadoo u raacinaysa ereyo dhiirigelina iyo deganaansho waxa u sheegtay nabiga sallallahu alayhi wasallam in uusan ilaahay cilla dhigin in uu yahay nabi maxamed qof wanaagsan oo dadkiisa iyo bulshadiisa u wanaagsan una naxariisa bulshadiisa haddaba tusaale ay inoo noqon kartaa Aisha marka ay noloshu ama marxaladuhu adkaadaan in aynu u baahannahay qof ina dejiya baahideena inoo buuxiya inaguna jecel sida aynu nahay dhiirigelina ina siiya iyo deganaansho garab istaag kasta waad u qalantaa naftayda cashirka saddexaad ee la dhaqanka bulshada naftayda gacalo dadka oo dhan ay soo maraan maalmaha adagi
muhiimadu waa in aynan ku soo celcelin qaladaadkii hore khaladaadkii maalmaheennii adkeeyay qaybtan markii aan marayay runtii qalbigayga aad ay u taabatay wuxuu ku bilaabmay erayadan naftayda ay gacalo naftaydii hooyada noqotay waan ogahay in hooyanimadu ay tahay marxalad ama kaakle maadaama ay hooyanimada weheliyaan dareemo badani oo kaliya dareemi maysid jacayl iyo farxad uun ee sidoo kale waxa aad dareemaysaa dareeno adag sida warwar isku buuq iyo daal warwarin hooyooyinka oo dhan ayaa sidaas dareema hawl fiican ayaad qabanaysaa waan ogahay inaad dareemayso sida aad tahay hooyada adduunka ugu xun laakiin i rumayso caruurtaadu mar walba way ku jeclaan doonaan ee jacaylkaaga ugu deeq waxa qura ay mar walba xasuusan doonaan waa taas waxa jiray qof walaalkay balse laakiin booskii waalidnimo iigu jiray kaasoo waqti aad u qurux badan ila qaatay in ka badan ilmaha uu dhalay wanaag akhlaaq iyo habdhaqan wanaagsanna ibaray sidaas oo keliyana iguma dhaafine waxa uu sidoo kale ibaray nolosha qaabka loo noolaado iyo qaabka kelinimada loogu guuleysto dhammaan waxaan ilaahay uga baryayaa waalidiinteena cimri dheer iyo camal suuban qaabka quruxda badan leh ay noo koriyaan mar walba kuwii ilaahay naga dhex jeclaadayna waxaan dhammaan ilaahay uga baryanaa inuu qabriga u nuuriyo waxa ugu weyn aynu ka baran karnaa cashirkan waxa weeyaan haddii aad tahay waalid ama haddii aad tahay qof weyn dhalinteena yar qaab wanaagsan aynu ula dhaqanno dhaqanka wanaagsan jacaylka iyo farxadda aynu siino waxay xasuustaan marka ay weynaadaan aad ayaan idinka raali gelinayaa aadna waan u jeclaan lahaa buuggan in aan waxoogaa sii dheereeyo balse laakiin wuxa uu leeyahay ku dhawaad 49 talooyin oo ku jira buuggan haddii aad xiisaynaysid inaan qayb labaad kasoo sameynana fadlan commentiga nagula wadaag qof walbaan waan kula talnay inuu isagu sahanti buuggan uu soo iibsado hadduu awoodo hadduusan awoodina inuu online ahaan oo ku akhristo ama pdf ahaan waxaan isku dayi doonaa in descriptionka ama meesha hoose aan soo dhigi doonaa halkaa ayaad ka heli doontaa wixii xog ee ku saabsan buuggan akhristiisa ama helistiisa waa inoo kulanka ku xiga kulankan waxaan laleeyahay dhammaan akhyaarta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu